kulanti wanaagsan oo wacan idil ahaantiinba meel kastoo caalamka daafihiisa iyo geega Soomaalida naga daawanaysaan ku soo dhawaada muuqaal kale oo xiiso leh. maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xaqiiqooyin ku saabsan wadanka Bangladesh. Bangladesh waa wadan dhaca koonfurta Aasiya. wadankan markii hore waxa la oran jiray Pakistan wixii ka horeeyay 1971. Bangladesh waxa uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Pakistan sanadku markuu ahaa 1971 kadib dagaal dheer oo waqti dheer qaatay dhiig badanna ku daatay. dalka Bangladesh waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda Aasiya. sidoo kale wadamada uu deris wadaag ama xuduud wadaag leeyahay waxa ka mid ah Hindiya, Burma, Nepal iyo Myanmar. dhinaca koonfureedna waxa uu xuduud wadaag kala yahay Badweynta Hindiya. caasimada wadankan waa Dhaka waxaana ku nool dad gaadhaya 20 milyan oo qof. lacagta wadankan laga isticmaalo waxa lagu magacaabaa taka, halka dollar waxa uu dhigmaa 80 tako oo lacagta wadanka Bangladesh. wadanka Bangladesh 90% dadkeedu waa dad muslimiin ah. sidoo kale waxa laga aaminsan yahay diimo kale oo ay kamid yihiin Kiristaanka iyo Hinduuska. dhulka ama baaxadda uu ku fadhiyo wadanka Bangladesh waxay gaadhaysaa 144,000 oo kiiloomitir iskuwareega, waxaana uu ku dhow yahay bedka gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. wadanka Bangladesh waa wadanka 8aad ee adduunka ugu dadka badan leh, sidoo kalena waa wadanka 3aad ee wadamada Islaamka ugu dadka badan leh, waxaana ku nool 166 milyan oo qof. wadanka Bangladesh sidoo kale waxa uu hodan ku yahay warshadaha kuwaas oo soo saara dharka iyo waraaqaha. sidoo kalena waxa uu dalkani ku caan yahay dhanka webiyada, waxaana ku yaala 700 oo webi in ka badan. luqadaha laga hadlo wadankan waxa ugu horeysa luqadda maxalliga ee Bangaaliga, waxa soo raacda luqadda Ingiriisiga oo ah afkii dalkii gacanta ku hayay xilliga gumaysiga. wadanka Bangladesh waxa uu leeyahay cimilo aan la isku haleyn karin, taasoo ay mararka qaar soo food saarto duufaano iyo dabaylo. sidoo kale afarta season waxa uu dheer wadanka Bangladesh labada xilli oo kala ah xilli roobaad iyo xilli dabaylood. intaas waxay noogu dhan warbixinteena aynu ka soo diyaarinay wadanka Bangladesh. haddaad tahay markii koowaad ee channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar, siina share garee muuqaalkan. aad iyo aad baad mahadsan tahay.